السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة إيه أبشر حسن اشتفتم أنا منى محمد عبدي جنالك أبشر حسن اشتفتم آلابا إذن كل وذاقة برنامج كسابسن أرمها بالشدة علم نفسية سوشيولوجي وسوسيولوجي أما psychology and sociology waxaan noo socday programkii resilience oo aan kasoo fiidiyoyaashii hadda ugu dambeeyey aan kusoo qaadanay resilience factoren ama resilience factors laba ka mid ana aan soo gudbiyey fideogana insha Allah qodobka saddexaad ayaan soo gudbin doonaa marka qodobka saddexaad waxa weeye problem losigkeit ama xalinta khilaafaadka problem solving ability dadku markay resilience yihiin dhibka ama problemada haysta kuma mashquulaan waxay raadiyaan xalka macquulka ah meesha ay ka heli lahaayeen ama ka bilaabi lahaayeen waxaana isku qiimo ugu fadhiya problemka iyo xalkiisa haddaba caruurta awooddaas leh waxay ku dhiiradaan hadafkooda ah in ay dhibka la soo gudboonaada si toos ah u abbaaraan wadooyinkii ay u mari karaan xalkiisa haddaba say kartidaas iyo aqoontaas u yeeshaan caruurta waa in aad ku garab istaagtid ama aan ku garab istaagnaa waxaa laga rabaa waalidka in ay caruurtooda u muujiyaan in ay ku kalsoon yihiin si ay ayaguna naftooda ugu kalsoonaadaan waxaan caruurta khatar ku ahayn ogolaadaan in ay kaligood qabsadaan ama xalinteeda ay iyagu la yimaadaan sida caruuraha kale hadday ismaagaan ama markay ciyaarayaan korkaa un waalidku kala socdo markayse caruurtu waalidka caawimaad ka dalbadaan dabcan inay waalidku caruurtooda garab istaagaan sidoo kale waalidku waxay caruurtooda ka qayb gelin karaan go'aamada reerka sida nolosha maalinlaha ah sida adeega cuntada waxa la karsanayo maalintaas ama haddii guriga qalab cusub la soo gadayo muhiimadda ugu horeysa dabcan cunuga qolkiisa waxa uu rabo in asaga la weydiiyo ama midabka uu jecel yahay haddii guriga ama qolkiisa la rajeynayo kale ama uu jeclaan lahaa asaga la weydiiyo qodobka saddexaad waa intaa dabcan barnaamijkan waxaa maxaa la dhahaa qoray ama daraasaadkan sameeyey waa dad wadamadan u dhashay oo caruuraha wadamadan ku nool ama ku koraya baa loo sameeyey laakiin waa la kala duwan yahay oo anagu hadda adduunyada saddexaad oo kale xataa haddaan wadamadan ku noolnahay weli maxaa la dhahaa in sheeg dhaqankeenu wuu ka duwan yahay dhaqanka meelahan marka annaga inkastoo wax badanna aan ka qaadan karno haddana waxaan isleeyahay inaan kusii saa-idino oo muhiim ay tahay aniga kulleyba maxaa la dhahaa aragtidayda waxay tahay waxa ugu horeeya oo caruurteena kalsoonida ka qaadaa waxay tahay qaabka aan anagu ula dhaqano matalan waalidku inuu uu caruurtiisa fargalaash yacni wax ah oo macnaheedu ay tahay isbarbar dhigid oo noloshaadii hore iyo nolosha cunuga uu maanta ku nool yahay inaad isgarab dhigtid oo tiraahdo war aniguba waxaas yacni sooma helin amba dadkii braad yihiin wax walbaad haysataa yacni aadan fiirin adigu waqtigaad noolayd oo aad intaad yarayd iyo maanta cunugan maxaa la dhahaa meesha uu joogo inaysan isku mid ahayn oo aadan isla mataal dhigi karin inaadan isku mid ka dhigi karin badana anagu waan sameynaa taasina waxay cunuga ku dhalisaa dareen xun oo ah yacni inuu cunugii dareemo in haddaan aniguba soo helin waayabaad adigu u helin oo kale yacni inuu cunugii adigii aad la tartamaysid waalid ahaan yacni
ama cadowtinimoba ay meesha ka muuqato markaynu xataa dhinaca runtii u qaadno waayo waxaan adigu ma heli kartid ee kale noqonaysaa waalidku saa kama wado laakiin cunuga saas u qaadanaya markay runta noqoto marka amaba laba walaalo ah la isbarbar dhigo laftirkeeda ama cunug kale oo daris ah ama maxaa la dhahaa caruurta dadka kale aad tiraahdo ma heblaaya gaari kartaa ma hebel baa gaari kartaa qof heblaaya kaa caruur maxaa la dhahaa kaa fiican gabadheeda ama wiilkeedu kaa fiican yahay waxyaalahaas oo dhan caruurta maxaa la dhahaa kalsooniday ka dhumisaa waana waxa keeni kara caruurtu bari inay ma aragtay maxaa la dhahaa ay waalidka ay kala fogaadaan oo kala fogaansho meeshaas uu ka yimaado mar walba yacni maxaa la dhahaa noloshu isku mid ma aha markaad xaafadan ku nooshahay ama qolkan iyo qolkan laba qoloo isku dhagan mid walba wuxuu leeyahay maaragtay hab gooni ah oo loogu dhaqmo ama maxaa la dhahaa loogu kuraastiisa ama sariiraha taa loogu fariisto marka noloshuna waa saas oo kale marka noloshii adigu aad kusoo nooleyd iyo noloshii ilmahaaga mar walba ha isbarbar dhigin hana fiirinin hana dhihin adaa iga nolol fiican oo nolol fiican baad haysataa maxaad la qaylin waayo ilmaha kani ma nooleen waqtigaagii isku waqti ma eedaan ahayn marka mar walbaba isku day inaad cunuga fahantid oo adiga aad reflex samaysid yaa maxaa la dhahaa adiga laftirkaaga yacni shalay markaad ilmaha ahayd waalidkaas siday shalay kusoo nool ayagu markay yaraayeen kusoo noolaa iyo adiga saa ku nooleed labay kale ahayd waxaa laga yaabaa waalidka laftirkiisa inuu ma aragti taa arkayn marka adiga wixii dabada ha ka sii wadin un ma ogtahay meel un inaynu ku hakino weeyo oo meesha uga tagno si uu isbeddel u yimaado marka isbeddel laga hadlaayana ma aha inaynu diinteena bedelayno inaynu ma aragtay maxaa la dhahaa dhaqanka waxyaalo muhiim oo waxaa jira maxaa la dhahaa wanaagsan in la haysto iyo waxyaalo in laga tago wanaagsan tahay ayaa jira marka anaga dhaqankeena waxyaalo badan oo waxaa jira runtii aanan diinna ku salaysnayn dhaqan wanaagsanna ahayn siiba markay caruur korinta noqoto waana waxyaalaha noo horseedaya runtii markaynu isu sheegno in caruuraheena la qaato inkastoo wadankan anigu aan ku noolahay runtii jarmalka caruuro la qaato badan aysan jirin laakiin wadamo badan oo yurub ah caruuraha dadka waa laga qaadaa waxyaalaha keenayana waxyaalahaasa ka mid ah marka si aynu isu badbaadino caruurteenana u badbaadino inaan dhaqankeena wax ka bedelno waa muhiim teeda kale la isweydiiyo waalidku xataa haddaynaan ma aragtay ahayn dadka ma aragtay researchyada iyo forshunku sameeya laakiin forshun iyo research wax kale ma aha in aynu iska wareysan dhibaatada meesha ka imaanayso iyo yacni maxaa keenay aynaan ma aragtay aynaan noqon dad kaliya u hiiliya dadka waaweyn waayo mar walba waxaa maqlaysaa hooya caruur laga qaatay famil baa la dulmay hooyaa la dulmay caruur baa la qaatay laakiin caruurta tan iyagaa dadkan u waramay iyagaa wax u sheegay iyagaa maxaa la dhahaa ii sheeg u tagay dadka ee la iskama qaadan caruurta marka caruurtii laftirkoodii in la fahmo waa muhiim oo caruurihii la wareysto sababta keenaysa inay ka cararaan reerahoodii oo qofku iskama cararo qofna qofkiisa kama cararo marka muhiim waxa ah inaynu su-aalo badan iska weydiino familada meelaha wadamada caruuraha badan lagu qaadanayna intay waalidkooda fariistaan oo kuwa xataa caruurahooda iyaga weli u joogaan oo haysta ay kuwii kale la fariistaan oo dad waxaan baaro la helo laga daba tago dhibaatooyinka meeshay ka imaanayaan waayo mar walbaba dhibaatadu salka waxay ku haysaa familka iyo caruurta iyo waalidka xiriirka ka dhexeeya hadduusan xiriir wanaagsan ahayn dabcan caruurtu maxaa la dhahaa waxay arkayaan waalid kale oo xiriir wanaagsan ma aragta caruurahooda kala dhexeeyaan iyagana waxay isleeyihiin dee waxbaa kaa khaldan waalidkaabaa wax ka khaldan yihin hubeynaa qodobkan saddexaad laftirkiisa Problemlösungsfähigkeit xalinta khilaafaadka ama problem solving ability midka koowaad problemka oon lagu mashquulin xalka oo muhiimadda loo arko oo la saaro awoodda caruurtu markay resilience yihiin ama kartidaa leeyihiin ayagaa isku daya inay dhibkooda ama probleemadooda xaliyaan hadduu ka awood batana dabcan waalidku ay markaa maxaa la dhahaa ay ma aragtay kalsooni iyaga ee caruurta ah kala dhexayso inuu cunugu waalidka ula yimaado problemkiisii midda saddexaad waalidka oo ku kalsoon caruurta si caruurtu naftooda ugu kalsoonaato waa saddexdaas qodob qodobka afraada wuxuu noqon karaa oo ah maxaa la dhahaa
يعني محل لها عرورت أو لجاه الجليو أما ما عرفتي نورمالمات كفملك كقيب قاطع أنا شخصي أهان كل بوحة آمن سنة هاي مركا عنق قامada reerka lagala tashado in xiriirka waalidka iyo caruurtu adkaado waayo cunug wuxuu isu arkayaa inuu qayb reerka ka mid ah oo maxaa la dhahaa ku leh maxaa la dhahaa ii sheeg position fiican ku leh oo go'aamada reerka ka qayb qaata inuu cunugu noqonayo oo dadka ula siman inuu waalidka uu dareemayo ixtiraam iyo la sinaan inuu dareemayo qof mar walba asaga go'aan laga gaaro uusan cunugii noqon taasaa muhiimadu tahay taasina waxaynu uga badbaadaynaa markaynu runta isu sii sheegno caruuro badan oo qurbaha la qaato kuwa wadanka joogana waxaa muhiim ay ugu tahay inuu cunugu mas'uuliyad dareemo iyo ixtiraam ay waalidkiis ixtiraam u hayaan marka maanta intaasaan kusoo gabagabeynayaa walaalayaal qofkii ma aragtay programmadeena xiiseeya maxaa la dhahaa subscribe-ka ha noo saaro iyo thumbs up-ka إن شاء الله قضبضك لنا وان كسو حجين دونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته